muddaxileedka saddexda xisbi qaran ucid kulmiye iyo wadani ayaa ku eg 26 bisha 12aad 2022 oo ah maalinta isniinta ay nagu soo fool kale taasi oo ay ka harsan tahay muddo 5 cisho ahi waxaana halkaasi ku eg muddadii 10 sano ahayd ee la siiyay liisanka xisbinimo saddexdaasi xisbi qaran Somaliland ayaa waxa ka taagan khilaaf siyaasi ah oo dhanka doorashooyinka kaasi oo u dhaxeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka xukuumadda Somaliland iyo xisbigeeda kulmiye ayaa ku adkaysanaya in doorashada ururadu ay soo horeynayso halka xisbiyada mucaaradka ahina ay ku adkaysanayaan in doorashada madaxtooyadu ay soo horeynayso mana jiro khilaafkaasi wax xal ah oo laga gaadhay ilaa hadda dhinaca kalena guddida diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta qaranka ee Somaliland ayaa dhowaan soo saaray 10 urur siyaasadeed oo gelaya doorashada xisbinimo komishanka doorashooyinka Somaliland ayaa hore ugu dhawaaqay in 9 bilood gudahood ay ku qaban doonaan doorashada madaxtinimo ee Somaliland balse ilaa hadda la islama meel dhigin ta soo horeynaysa doorashada ururada iyo madaxtooyada xisbiga kulmiye oo isagu haatan ah kamidida daabkeeda haya ayaa dadka siyaasadda falanqeeya ay aaminsan yihiin in doonista gelitaanka doorashada ururada siyaasaddu uu arko jaanis siyaasadeed oo mar labaad u saamaxaysa inuu madaxweyne biixi ku guuleysto kursiga uu haatan ku fadhiyo muddo korinta 2 sano ah halka qaabeeyayaasha siyaasaddu ay dhinaca kale qabaan mucaaradku inay diidaan gelista doorashada ururada oo ay u arkaan hadiiba ay la galo doorashada ururada mid halis ku ah sii jiritaanka ama soo bixista inay mar labaad ku soo laabtaan xisbinimo su'aasha isweydiinta mudan ee dadka reer Somaliland isweydiinayaan ayaa ah marka la gaaro maalinta 26 December xisbiyada ucid wadani iyo kulmiye ma waxa ay la mid noqon doonaan 10 urur siyaasadeed mise waxa iman doonta xal lagu soo afjarayo khilaafkaas oo ay ku sii ahaan doonaan xisbiyo qaran Cabdiraxmaan Cige Horyal TV Hargeysa